رمضان وفرصة هذا قالية وقفك عبادة أو هلاني وجعل السنة ينكر حي وحاوبها هنا ينتبه أجنو سنة ذي هراء يا رمضان ذي هراء من دد أنت دد إن لا تشوقي أهل أصحاب له معارف له دد بوتيرسو واديابي alaabta baad iska soo xidhxidhanoo aduguna ama inaguna kuyuugaa baynu isu sii diyaarin doonaa weliba ayaamahan dambe sida loo soconayay waa cashar iyo cibro wax lagu cibro qaatana geerida u mudan qofka isag joogteen ama isku ag tukanayseen ama isku shir fadhideen ama isku xaafada haydeen markuu libdhuu qarsoomaan u soo noqonayn adigu maxaad sugaysaa meeshii haddaba mudnayda laga sahay qaadanaya waa ramadaan waxaa la sahay qaadanayaana waa camal ee daaraha iyo dunyada maaha marka fursadda qiimaha badan ee qaaliga ah fadligeediiyo waxa laga faa'iidayo baynu ku soo koobsan doonaa insha Allah 8 arrimood oo inagu filaan doona arinta oo horeysa waxa weeye bishani waxay leedahay khusuusiyaad waxyaabo dheeraada bisha dhexdeeda insha Allah hadaynu gaadho waynu ka sii warrami لكن إلى تضباء الرماد أي حديث كان يشاقيا النبي عليه الصلاة والسلام وحاو كحس حديث كان صحيحة تتكيسقوا بشارين بشنا ترحيبنا يوسور دوين يوحورنشري قد جاءكم شهر رمضان وحيديمي بشي رمضان شهر مبارك وبالبركة يسن مركا رمضان كريم يا رمضان مبروك midna inaan la oranayn ba xadiidka laga faa'iideysanaya la oranayaa ramadaanul mubaarak nabiga magaca uu bixiyay mabruuk iyo mubaarak way kala duwan mabruuk waa waxa fadhiya la yiraahdo laakiin mubaarak waa shaygii barakaysna mubaarak bikasri raana maaha bikasri raadi la akhriyo la yiraahdo mubaarak waa qofkii wax barakaynay marka waa bil barakaysan kataba Allahu alaykum siyama waxyaabaha dheeraadka lati waa inay barakaysan tahay وإن صوم كذا واجب يهاي وبلاه كلا تاوي كجد وانت بلاه كلا صوم كذا وسنة فيه تفتح أبواب الجنة الباب ذي جنة على فريا إن كبضان انتي هراء وتغلق فيها أبواب الجحيم نارها الباب ذي نوال حريا وتغل فيه مرادة الشياطين شياطين تملح أتكارب كإنه هي عبادة ذي نودي دنا دقالك أتكانا ولا حريا لله فيه ليلة خير من 1000 شهر إلهي وحو هبين كان أمضى ودحدقاي هبين بشان ودحدقاي هبين كفضل بدن كن بلاد من حرم خيرها فقد حرم نبي وحو الله عليه الصلاة والسلام بشان قفك لقى عرف سيتشيا لقى قضيه اللو ديدو اللو قدرين خيرك إلا ذا فرها بدن كاسو عرفكو أي marka arrimahaas oo dhan buu nabigu ku yabohay calayhi salaatu wasalaam marka intaas oo arrimood kol haday bilihi kaga duwanta inaynu isha si gaar ah ugu haynaa oo inuu han weynaanaa wax weyn qodobka labaad waa sababaha lagu dhaafo dambiyada innagana waxay noogu darani waa dambigeena oo cid kale oo ilaahay ahayn oo inaga dhaafaysa aanay jirin rasuulku sallallahu alayhi wasallam xadiis waxa uu ku saxiix muslim ku sugan as-salawaatu al-khams wal-jumu'atu ila al-jumu'ah ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر صلاة شنطة يلا بدا الجمعة يلا بدا رمضان انت ودحدحايسا إلهي وكلها فدنبيغا أنا رمضان تي وروحي كدنبي إلهي تنوين قلافي إن شاء الله تعالى دنبيا دا واوين هدي لقد ركبوا النبي دنبيا دا واوين وين كتوبت كارينا أرنت الصدحات بشتني فضل إله هاي سي إنه قولي رنين وش على السنة وحكمدا إنه صام كي نقنيو إلهي هرتي سميد إنه غير جاية ما أنت أنا قاد بين قبها هاي إلهي إنه هرتها جن هاي عيد إنه غير جاي سؤال إرجع هذا وأقبله النبي عليه الصلاة والسلام وحكول حديث صحيحة الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة صومك إيه قرآنك labadaas siba adoonka way u shafaaco qaaday way u ergeynayaan ilaahay bay uga ergeynayaan maalinta qiyaamaha mid waliba gaarkiisu u doodayaayo soomkii wuxuu leeyahay ilaahay waxaan u diiday qofkan cunadiisii iyo rabitaankiisa
qur-aankiina wuxuu leeyahay hurdadii baan u diiday habeenkii oo dhan buu akhriyay oo igu soo jeeday rasuulku wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam fayushafa'an waa laga erga aqbalaya camalka saalixa inuu ilaahay ugu tawassulayna inuu ugu dhawaanayna markuu inoo ergeeyo ilaahay baa ka aqbalaya ergada wax lagu yidiisho qaaliya weey cibaadadan iyada ah waxay leedahay dheeraad uu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam addoomaha ku dadaala caanka ku ana casuumad gaar oo ilaahay u fidinayaa maalintuu awliyadiisa jannada geynayo